arrinta markay dhacday oo dhibka uu dhacay waxaa ku soo baxay odayaasha dhaqanka ee magaalada oo horkacayo imaam maxamed yuusuf waxaa laga joogaa muddo ku dhow bil ilaa iyo hadda arrintii odayaasha dhaqanka guul waa ka gaari waayeen sababtoo ah dhinacii geystay dhibka ma rabiyo inuu arrintaas ka hadlo ma rabiyo inuu xalliyo mana ogolo oo weli waxay ku sii adkaysanayaan inaysan rabin inay wax ka qabtaan waxaan isku daynay dhinaca kaleento oo ku soo baxay arrintaas maamul goboleedyo iyo madax gobollo oo markaas joogay magaalada muqdisho iyaguna wixii ay u istaageen oo ahayd arrintaas inay dhamaato waa lagu guul dareystay ilaa ay hadda dawladdu kama tacsiyeynin dadkii dhintay kama hadlin dhibkii naloo geystay oo annagoo meesha joogno oo shaqadeenna ku jirno nala ku soo weeraray dawladdu ilaa hadda kama hadlin saas darteed waxaan go'aansanay inaan hab sharciga waafaqsan oo garsoorka ku kala baxno saas darteed dacwooyinkii loo baahnay iyo dariiqii loo baahnay ayaan u soo marnay saraakiisha shanta oo ciidamada anuu habeenkii dadka guri lagu soo weeraraan ku jiray oo ilaahay ka badbaadiyey isku daygaas dil saas darteed raggii saraakiisha ahaa iyo howlgalka ku jiray iyo dadkii soo amray oo hawshaas soo amray oo madaxda ahayba waxaan rabnaa intaba in la soo taaga sharciga sida guddoomiye oo idin sheegay waa 5 qof oo ka tirsan ciidamada oo saraakiila iyo 2 qof oo ka tirsan maamulka 2 qof oo kala jirto oo ka sii sareysa ayagani oo ay tahay in xasaanaday leeyihiin xasaanadaas laga qaado si loo dacweeyo ayagani macnaheedu waxa waaye waa in dadkii ka dambeeyay arrintan oo ka kooban 9 qof ilaa hadda inta aan anaga aan hayno in la soo hor istaajiyo sharciga si wixii ay sameeyeen loogu qaado wixii sharcigu ka qabo waa maasantihiin anagu dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan u taagannahay dhibkiina gaaray iyo dadkii annaga nala shaqeynaa dhibka gaaray labadaba inaan u taagannahay inaan arrintaas aan rabno inaan gaarsiino meel oo sharciga waafaqsan dadkuna waxay ku maadsan yihiin inay naga war sugaan annaguna waxaan rajaynaynaa inaan ku soo guuleysano waana maasantihiin